بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ugu horeyn dhammaan shacabka Soomaaliyeed qaasatan shacabka reer Galmudug reer Gurceel hambalyo maanta oo aynu joogno kowda Luuliya oo ah maalintii ugu dambeeyay asbuuca xornimada Soomaaliya oo ah maalinkii Soomaaliya koonfur iyo waqooyi ay midoobeen kowda Luuliya markaad maqasho waxay u taagan tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed ayadoo si gaar ah ugu taagan maalintii ay xorowday koonfurta Soomaaliya waxaan mar kasta maqalnaa asbuuca xorriyadda Soomaaliya shan qayb ayay ahayd saddex ayaa hadda xor ah waxa uu xorriyadda markii ugu horreeyay qaatay waqooyiga oo ka qaatay dalka Ingiriiska 1960kii 26 Juun ay qaateen kowdii Julayna waxa qaatay koonfurta oo Talyaaniga ka xorowday 1977kii 26 Juunna waxa 27 Juunna waxa qaatay Djibouti bisha la yiraahdo Juun markii 26 maraysa ilaa 1 July asbuucaas waxa la yiraahdaa asbuuca xorriyadda Soomaaliya xornimada Soomaaliya oo laga hadlayo waxay u qaadatay si maadi ah waxay ka soo bilaabataa 1900 oo ay bilowday halganka qaybtiisa koobaad oo ahayd qaybtii dagaalka oo sayidku hogaaminayay oo socotay ilaa 1920kii 1920kii wixii ka dambeeyay waxa yimid culays laga dhaxlay halgankii burburay 1943dii waxa la aasaasay lagadii SYL ilaa xornimadii dalka laga qaatay waxa dareemaysaa marka labada qaybood qaybta dambe ayaa tira badneed oo waqti dheereed xilligaas wixii ka dambeeyay dawladnimada ay Soomaaliya ayaa timid dawladda Soomaaliya waxay martay maraaxil kala duwan waxay ka bilaabataa 1960kii qaybta koowaad waxay ku tagtaa 1900 ilaa 69kii waxa loo yaqaan xilligii dimuqraasiga ama Soomaaliya ee dimuqraadiyadda dawladda ah ka dhisneed dawladdii kacaanka ayaa 1969kii la wareegtay ilaa 1990kii dalku wuxuu galay burbur 1990kii ilaa 2000 waxaan gaarnay dawlad ku meel gaar ah 2000 ilaa 2012kii 2012kii ilaa hadda aan joogno ayaan waxaan haysanaa mar labaad dawlad dimuqraasiya oo aan ku meel gaar ahayn intaas oo marxalada markaad dib u milacsato waxaad helaysaa Soomaaliya maanta waxa ay tiigsanayso iyo meesha ay ka soo bilowday dalal badan oo ka dibteen xorriyadda qaatay oo Djibouti ka mid tahay oo muddo dheer naga dambeeyay 12 sano waxaan dhihi rabaa 17 sano nooga dambeeyay xorriyadda waxaad dareemaysaa meesha maanta ay marayaan iyo meesha aan marayno in farqi badan u dhaxeeyo marka laga hadlayo dhanka deganaanshaha dalka markii leeyahay dalkan waa xor waxa lagu talagalay dalka siyaad ahaan inuu guri dhamaantiis xor yahay maantana waxaan ognahay in ciidamada shisheeye ay waardeynayaan taas oo nuqsaan gelinaysa xorriyadda dadka Soomaaliyeed intooda badan niyad ahaan iyo qalbi ahaan ay maanta u xoreysan yihiin ayada ayaa waxay nooga baahan tahay in la dhiirigeliyo waan isugu hambalyeynaa maalinta xorriyadda Soomaaliyeed waxaan sidoo kale rabaa inaan shacabka reer Galmudug qaasatan shacabka reer Gurceel aan ugu dhiirigeliyo sida xamaasadda leh oo ay munaasabadda ciidda dalka isugu soo baxeen ama ay xilligan ugu dhafrayaan ayagoo qaybihi kala duwanay oo bulshada isugu jiro walow aan aaminsanahay inta ugu badan dadka howlka jooga maanta inay dhalinyarada yihiin maskax ahaan iyo moraal ahaan waxaan rabnaa mar kasta oo dadku ay u cabiran tahay wixii ay soo mareen waa mar kasta oo ay fududaanayso inay qiyaasaan meesha loo socdo waxaan rajaynaynaa mar dhow dadka reer Galmudug inay codkooda ku ciilbaxaan qof walba maskaxiisa waxa ku jira inay dukumiinti u noqdaan asaga hadii Ilaahay yiraahdo waxaan kugu hambalyeynaa marka ugu dambayda maalinta ciidda dalka oo ah kowda Luuliya waa inay noo ahaato maalin taariikhi ah oo sida ay korka dhaga ugu xardhan tahay ee qalbigana u xarnaato